soo dhowaada asxaabey walaalkiina barqaba maanta inii wada sheeko kaloo aad u xanuun badan ka horse sheekadan intaana bilaabin nagoobi inaad muuqaalkan laygtar janalka haddaad ku cusubtaana sabskraibta naga hilmaamin lets go bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa gabadha yar oo aad u qurux badan taasoo lagu magacaabo helen da'deeduna 16 jireed ayaa waxa ay dhammaysay dugsiga sare helen waxay ahayd gabar riyooyin waaweyn leh waxayna doonaysa inay jaamacad gasho kadibna dhakhtarad ay noqoto laakiin riyadaasoo dhan waxay burburtay kadib markii ogaatay hooyadii aabaheed inaysan bixi karin lacagaha jaamacadda sababto waxay ahaayeen dad beeraleey aan awoodin nasiib wanaagsan maalin ayaa guriga waxaa soo booqday gabadhan eedadii taasoo lagu magacaabay kimi iyadana waxay kala hadashay inay doonaysa mustaqbalka dhakhtarada inay noqoto eedada ayaana ka aqbashay waxayna tiri magaalada ayaan ku kaxaynayaa arrinkaasna helan aad bay ugu farcday aabaheed iyo eedadiyeyna kala hadashay iyagana way u ogolaadeen maalinka xigana safarkeeda ayay isku soo diyaarisay iyadoo socdaysa dhankaasi magaaladii ay ku nooleed eedadeeda goortaysa magaaladiisi ay soo gaartay waxay aragtay magaalada inay aad u weyn tahay waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey eedadeeda kimina xilligaas waxayna lahayd ninkeeda lagu magacaabo kooti oo ahay nin ganacsada ah goortii helan guriga la keenay aad bay ugu farxday laakiin asbuucii ugu horreeyay si wanaagsan ayay la soo dhoweeyey asbuucii ka xigana guriga iyo waxayba ka noqotay khadaamad ama gabar shaqaale ah helanna waxay ogaatay eedada inay khiyaano weyn u geysatay guriga ayaana iyada shaqaale looga dhigay sidaasoo kale kimi waxay dhashay hal wiilkaasoo lagu magacaabayay jack kuna jira sanadkii ugu dambeeyey jaamacadda jack wuxuu arkay gabadhan shaqaalaha guriga ka shaqaynaysa kadibna aad buu ula dhacay waa uuna ka helay jackna wuxuu go'aansaday gabadhan jaceylkiisa inuu soo bandhigta habeen ayuuna jikada ugu yimid iyadoo xilligaas alaabta dhaqaysay kadibna waxa uu ku yidhi helanaya haddii runtaan kuu sheegay anigu waan ka helay ee sidee aragtay haddii aan noqotay gaclaysideeda qarsoon ina arrinkeenna bannaanka ma keenayno iyadana xilligaasi waxay isdayaysa haddii ninkan jaceylka ka aqbashida dhibaatooyinka gurigan laga hayo waa ay ka yaraa doonaan iyadana kama aysan diidina waa ay ka aqbashay wixii intaasi ka dambeeyana waxay bilaabeen labadooda inay waqti halkaas ku wada qaataan weliba xilliga maamada iyo weliba aabbuhu aysan guriga joogin inkastoo markuu aabbuhu joogo isagaa si xun ula dhaqmi jiray inta ay maqan yihiinna si wanaagsan markay weydiisana waxa uu dhahayay waxaan ka cabsanayaa hooyo inay arrinkeena ay ka shakada sidaas ayaana wax walba u samaynayaa si kastaba haatee iyadana waa ay ka aqbashay laakiinse dhibaatooyinkii guriga loogu hayay ma aysan yaraan sidaas ayaa mar walba loogu waday maalmuhuna sidaas ayay ku socdeen asbuuc ayay isku dhibayeen halka asbuucna bilooyinku isku dhibayeen maalin maalmaha ka mid ayaana waxay bilowday gabadhii inay matagto xilligaasna waxaa aragtay maamadii kimi kadibna waa yaabtay waxayna tiri gabadheedii maxaa kugu dhacay see lagu hayaa ma jiran tahay iyadana waxay tiri ma sheegi karo maama laakiin waa jiranahay kadib ay tiri aan ku weydiiyey gabadheedii ma waxaa jira wiilal aad la seexatay sheeg iyadana xilligaasi waxay tiri maya laakiin isla markiiba waxay u qaaday dhankaas isbitaalka kadib baaritaan markii lagu sameeyena waxaa la ogaada gabadha inay uur leedahay kiimisa goortay intaasi maqashay aad bay u carruurtay kadibna waxay bilowday gabadhii inay aad ugu qayliso waxayna u soo qaaday dhankaasi guriga intay waddada ay ku soo wadana qayle ayay dhagaha uga saartay goortaysa gurigii sidaas u keentay kiimi waxay bilowday gabadhii soo inay ku raacday xilligaasna waxa ay dhahaysay maxaad gurigayga ceebta weyn ugu soo jiiday sida kale yaa waay ninkan aad la seexatay xilligaasi guriga waxaa ku sugnay ninkii jaagay markuu maqla buuqa hoos ka yaraayana hoos ayuu soo aaday wuxuuna doonayay bal inuu ogaado waxa hoos ka socday iyo weliba waxa ay gabadha samaysay goortausa hoos u soo degayo wuxuu bilaabay hooyadiis inuu weydiiyo waxay gabadha samaysay kadibna hooyadii waxay ku tiri maogtahay gabadhani waxay bilowday inay wiilasha la saxaata haddana uur ayay leedahay heelanse xilligaas waxay rajaynaysay ninka inuu garabkeeda soo istaagi doono laakiin wuxuu bilaabay gabadha inuu caayo wuxuuna ku yidhi hooye macaan gabadhan wasaqada guriga maxaa nooga keentay maadaama gurigeenna ceeb weyn ay u soo jiidayso xilligaas heelan waa ay yaabtay kadibna waxay bilowday inay aad u oyso waxayna ku tiri maogtahay ilmahan calooshaya ku jira inuu ninkani uu ka dambeeyey in aniga uur ka qaado sababta hameen walba guriga ayuu igu imaan jiray maamadii goortii intaasi maqasho way aamin weysay kadibna wiilkeeda ayay ku soo jeestay waxayna tiri gabadhan waxay sheegaysaa sax miya laakiin wiilkii jaag ayaa isla markiiba gabadhi darbaxsho ku dhuftay waxa uuna ku yidhi hadda ayaa bilowday inaad been noocaana aad sheegto si ayaana been anigiiga sheegaysaa isla waqtigaas ay gabadha garaacayeenna guriga waxaa soo gasho gabar kale lagu magacaabo deera waxaan dhalay nin ganacsada kaasoo haysta hanti fara badan gabadhan deerana waxaa la doonayay in la siiyo wiilkan jaag maamadii goortay aragtay gabadhii garaacaysa ayay joojisay isla markiina gabadhii ay halkaasi hab ku siisay weliba iyadoo si diiran u soo dhoweysay kadibna gabadhi ayay ku jeesatay waxayna tiri gadaal ayaan adiga kaala xisaabtami doonaa wax hadda iga tag qolkan iga taga kadibna gabadhi ayay si diiran guriga ugu soo dhoweeyeen si kastaba haatee gabadhii yartaa heelana iska baxday qolkeeda iska tagto wax yar kadibna waxaa ka soo daba gashay gabadhii kale ee deera waxayna tiri haye wax walba waan maqlayay waxaana bilowday ninkaan doonayay mustaqbalka inaan guursado inaad been ka sheegtid ogow mardamba haddii waxyaabahan oo kale aad dadka la hortimaado ogow wixii kugu dhaca adiga ayaa isku dhigay nolosha ayaana kaa qari doonaa heelanse goortay intaasi maqasho aad bay isagoysa waxayna ogaatay gurigan ayada dhibaato weyn in loogu hayo habeenkii o dhan halkaas ayay isaga oynaysay maalinkii xiga markii la gaarana go'aan waxay ku gaartay weliba xilliga ee hore ahayd
alaabta yartaa guriga inay ka aruursato kadibna subaxnimadiiba guriga ayay ka soo baxday waddada ayayna ku socotay xilligaasna waxay ka xishoonaysay dib inay ugu laabato xaafaddii hooyada iyo aabaheeda maadaama hadda iyada ay ur leedahay laba maalin ay waddooyinka sidaas ugu wareegaysay dhinacna isaga jiifanaysay ayaa maalin maalmaha ka mid a iyadoo waddada dhinaceeda fadhisa xilligaasna baa xun dareemaysa ayaa waxa u yimid gabdho waxayna arkeen gabadhan maskiinta ee waddada dhinaceeda fadhiya kadibna waa ay ka naxeen mid ka mid a gabdhihi ayaana u soo dhowaatay kadibna waxay ku tiri abbaaya maxaa kugu dhacay waddadana maxaad u fadhisaa iyadana waxay bilowday sheekadeeda inay uga sheekaysa kadibna gabdhihii waa ay ka danqadeen waxayna bilaabeen gabadhii inay caawiyaan aan u soo laabano gurigii kuti waxaase waxay deera aabaheeda kadibna waxa uu yidhi waxyaabahan aan maqlayo ee la xiriira wiilkaada inay gabar u qaado waxaas maxaa ka jira kutina waxuu bilaabay ninkii beenna u sheegay waxa uuna ku yidhi waxaas ma jiraan ay gabar yar oo guriga nooga shaqaynaysa ayaa bilowday inay wiilkaygay dusha ka saarta beentaasi kadibna deer aabaheed ayaa waxa uu ku yidhi haddii waxaas ay ru noqdaan ama xaqiiqda ay soo baxdo gow gabadheenina ma siinaya xiriirkeenana waa u dhammaanayaa kuti ayaana waxa uu ku yidhi taas lagama yaabo inay dhacdo arrinkan aniga ayaa soo gabagabaynaya kadibna waxa uu ku yidhi deer aabaheed okay dhimal adiga ayaan kaa warsugayaa wixii jawaabana iigu soo celi kutina soo baxay kadibna wuxuu xaafaddii ugu yimi xaaskiisa waxuuna ku yidhi waxaan ku weydiinayaa aawo gabadhii ceebta gurigeenna u soo diiday iyadana waxay ku tiri sorry gabadhaasi shalay ayay guriga ka fakatay muuna malaynaya inay meelahan ay ku sugan tahay kadibna kuti aad buu u carooday waxuuna yidhi waxaan u baahanahay gabadhaas in gacanta lagu soo dhigo maadaama aniga gurigay ceeb weyn ay u soo diiday wuxuuna sidaasoo kale yidhi gabadhaasi waa musiimo gurigay ku soo korortay kutina isla markii mobilkiisa ayuu qabsaday wuxuuna wacay nin sargaala kaasoo xilligaasi ka shaqaynayay dhankaasi magaaladii uu ku noolaay arrinka ayuuna la wadaagay wuxuuna ka codsaday gabadhaas in gacanta loogu soo dhigo sargaalkiina waa uu ka aqbalay isagoo sawiradii weli wax walba u diray aan dib ugu soo laabana dhankaasi gabadhii heelan gabdhihii markay gabadhani sheekadii maqleen aad bay uga danqadeen sidaasoo kale xilligaasi boolisku waxay raadinayeen gabadhani iyagoo waddada xilligaasi ku dhex wareegaya ayaa labadii gabdhood ee gabadhan badbaadinayey waxay arkeen in gabadhani la raadinayo kadibna waxay dhaheen waa inaan meesha ka caradnaa xilligaas iyagoo isku dayay inay meeshii ka dhuntaan ayaa booliska arkeen kadibna gabadhii helan ayay kusoo jeesteen waxay dhaheen waa inay istaagtaa goorta istaagteen labadii gabdhood ayaa ka soo hormaray kadibna waxay dhaheen gabadhani maxaad ka rabteen maxaadna u raadinaysaan kadibna waxa ay ku dhaheen booliskii gabadhani waxaa noo sheegay inay dhankaas isbitaal ku socota doonaysana inay ilmaheeda iska soo rido laakiin labadii gabdhood ayaa ka hor istaagay waxay dhaheen macquul maahan gabadhana lagama yaabo waxyaabahaas inay samayso booliskiisa waxay ku adkaysteen gabadha inay kaxaystaan laakiin gabdhihi ayaa ugu dambayntii wax yar ku qanciyey booliskiina isla markiiba waa ay ka aqbaleen meesha iyana ka tageen waxayna ku dhaheen gabadhan waa inaad hadda qarisaan gabdhihiina kama aysan diidin isla markiina gabadhii ayay meeshii ka soo kaxayeen kadibna gurigooda ayay geeyeen xilligaasna waxay bilaabeen gabadhii inay daryeelaan oo halkaasi ay ku daaweeyaan nasiib wanaagsa bilooyin markay ka soo wareegatana heelan waxay dhashay mataano inna waxaan ka wadaa wiil iyo gabar kadibna gabdhihii kale ee guriga la jooga aad bay ugu dabaaldegeen xitaa heelan xilligaasi farxaddeeda lama soo koobi karin sidaasoo kale heelan kama aysan rijo dhigin rajadii ahayd in ay jaamacad gasho nasiib wanaagsa gabdhihii kale iyada ay la joogtay ayaa isla markiiba scholarship u raadiyey iyadana scholarship waxay ka heshay halkaasi Amerika horta sidaas u heshay aad bay u farxday kadibna waalidiinteeda iyo booqatay si ilmaheeda uga tagto kadibna waa ay soo baxday iyadana waxay soo aaday dhankaasi Amerika si ay waxbarashadeeda halkaas ugu sii wato aan dib ugu soo laabano 6 sano kadib waxay isguursaday gabadhii Deera iyo weliba ninkii jaaga ay nolol qurux badan ayayna ku noolaadeen bilooyin markii isla noolaadeenna Deera waxay qaaday uur maalin maalmaha ka mid ah ninkii jaaga wuxuu gabadha u soo qaaday dhanka isbitaalka si jaag ab loogu soo sameeyo laakiin intii ay wadadii marayeen nasiib darasa waxa ay galeen shilkaasna waxaa ku geeriyootay gabadhii Deera weliba iyadoo aan dhalin sidaasoo kale waxay waxyeello weyn ay ka soo gaartay ninkii jaagay isla markiina waxaa loola cararay dhankaas isbitaalka dhaqaatiirta ayaana waxay isku dayeen ninkan inay daaweeyaan waqti badan ay la tahay ugu dambeyntii waxay ku guuleysteen inay ninkii badbaadiyaan laakiinse warka xanuunka badan ee soo baxay xilligaasi waxa uu ahay inuu ninkan jaag mar dambe aabbo uusan noqon doonin sababtoo ah xubnihiisa ayaa waxaa ka soo gaaray waxyeello weyn kuutii weliba xaaskiisa Kimi goorta intaas maqleen way rajo dhigeen waxayna ogaadeen in iyaga arki doona ilmo awoow iyo ayay u noqdaan si kastaba haatee meeshay isaga murugoodeen inkastoo hanti fara badan ay lahaayeen haddana hantida maanta wax ma aysan tarin kuutii xaaskiisa iyagoo maalin guriga isaga murugaysanaya kuutii walaashiisa Loola waxay ku soo booqatay gurigii kadibna waxay bilowday inay la hadasho Kimi waxayna ku tiri Kimi waxaan ku weydiinayaa horta arigii ma xasuustaa Helen weliba la yidhi xilligaasi gabadhaasi uur ayay qaaday ma laga yaabaa ilmahaas inuu wiilkaada lahay maxaan arrinkaas hambaalitaan ugu samay weynay goortaysa Kimi intaasi maqashay hadalka ayaa ku dhigay kadibna xasuus ayay gashay waxayna bilowday bal wiilkeeda inay arrinkan ay ka soo xaqiijiso maadaama hadda ay rajadii ahayd inay awooy ay noqdaan ee mar kale u soo muuqatay laakiin waxay halkan aan ka hakanaan aadna dhankaasi Amerika
gabadhii yartayd ee Helen jaamacaddii waa ay dhammaysay. Goortayse jaamacaddii ka qalin jebisay waxay shaqo ka heshay meel NGO. Meesha ayayna bilowday inay ka shaqayso. Wax badan ayaana ka soo galay nolosheedana way wanaagsanaatay. Sidaasoo kale mar ayay waxay soo booqan jirtay halkaasi dalka Nigeria. Mar kale aan dib ugu soo laabanno. Kimi iyo weliba gabadhii kale ee Lola waxay labadooda soo aadeen qolkii uu ku jiray wiilkii lagu magacaabayay Jack. Kadibna maamadii ayaa u soo dhammaatay waxayna ku tiri wiilkaygiiyo waxaan doonayaa inaan su'aal yar aan ku weydiiyo. Waxaasna wax kale maahan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo. Gabadhii yartayd ee Helen ma adiga ayay uurka ku qaaday warkaasna maxaa ka jira? Isagana wuxuu bilaabay inuu hoos fiiriyo. Eedadiisa Lola ayaa u soo dhowaatay waxayna tiri wiilkaygu waan ku baryaa xishoona ee runta noo sheeg. Warkaasi ma jira gabadhaasna adiga may uur ku qaaday. Isagana isla markiiba neef ayuu qaatay waxuuna bilaabay arrinkii oo dhan runtii inuu ka sheego. Wuxuuna yidhi aniga ayaa gabadhaasi uurka u yeelay. Goortayse maamadii arrinkaasi maqashay aad bay u farxday. Haddana waxaa mar kale u soo laabatay rajadeedii ahayd in iyaga hadda ay noqon karaan awoowe ayeeye. Kimina xilligaasi farxaddeeda lama qiyaasi karin. Mar kale aan dib ugu soo laabano dhankaasi Ameerika. Helen nolol aad u qurux badan ay ku nooleed. Waxay isbartaan wiil kale oo lagu magacaabo John. Johnna wuxuu ahaa wiil Amerikaan ah. Kadibna habeenada ka mid ah waxay labadooda isku raaceen dhankaasi casho. John inkastoo gabadhaani si dhab ah u jeclahay, habeenkani casada isugu raaceen waxa uu doonayay inuu runta u sheego. Kadibna waxa uu ku yidhi walaalay waxaan doonayaa inaan ku guursado. Sida ayaad u aragtaa? Goortii hadalkaasi ay maqashay iyadana way aamini weysay. Farxaddeedana xilligaasi lama qiyaasi karin. Isla markiina waa ay ka aqbashay waxayna tiri diyaar ayaan ku ahay waana ka aqbalay. Mar kale inoo soo celi Nigeria. Kuti iyo weliba xaaskiisa Kimi goortii warkii farxadda la maqleen waxay bilaabeen gabadhii inay raadiyaan. Nasiib darrose waa ay ku guuldaraysteen. Marar badanna ay baadi goobeen waa ay ku guuldaraysteen. Ilaa maalmaha ka mid iyagoo raadinaya ay gabadh la kulmeen. Kadibna loo sheegay meeshii gabadha laga qaaday iyo weliba meeshii la geeyey. Kuti iyo weliba xaaskiisa xilligaasi aad bay u faraxsaneen wiilkana waa uu la socday. Kadibna waxay bilaabeen inay soo aadaan meeshii loogu tilmaamay. Maalintii xigana gabadh ayay meesha kula kulmeen kadibna waxay bilaabeen bal inay gabadhii weydiiyaan. Gabadhii ayaana isla markii tiri waan aqaanaa gabadhaasi Helen. Halkan ayayna ku nooleed. Weliba waxay dhashay wiil iyo gabar. Waxayna sidaasoo kale u raacisay inay gabadhan gabar aad u adag oo geesiyada. Goortaas Kuti iyo weliba xaaskiisa iyo wiilkiiba intaas ay maqleen. Aad bay u farxeen waxayna ogaadeen laba in loo dhalay. Kuti iyo xaaskiisa murugadii haydana sidaas ay uga baxday aad bayna u faraxsanayeen. Kadibna waxay dhaheen bal hadda gabadhii meelna uu sheegay ka heli karnaa. Waxayna u sheegtay Helen hadda inay aaday dhankaasi Ameerika. Waxbarashana waa laakiin ilmihii waxay u qaaday dhankaasi xaafadii ay ku noolaayeen hooyadii aabeeda. Kadibna waxay bilaabeen adreskii inay ka qaataan iyagoo faraxsanayeen isla markiiba diyaarad meeshii ka soo qaateen oo waxay u soo safreen meeshii ayaga loo soo tilmaamay. Safar saacado qaato ay ku soo jireen ugu dambeyntiina waxay soo gaareen xaafadii ay ku nooleed. Helen waalidiinteeda iyagoo xilligaasi filayay inay la kulmi doonaan. Kadibna waxay bilaabeen xaafadii inay raadiyaan. Goortayse gurigiisiyaasi ay ugu soo dhowaadeen ayaa dhanka dambe waxaa ka yimid baabuur. Baabuurkaasna wuxuu ahay baabuur aad u qaaliya looguna talagalay dadka taajiriinta. Laakiin baabuurka ayaa dhinacooda lagu soo baakimay. Iyagoo isweydiinaya qofka soo degi doona ayaa xilligaas waxaa ka soo degay Helen. Helen meeshani waxay u timid si ay waalidiinteedu la kulanto. Sidaasoo kale maalinkaas waxaa la socday ninkeeda John oo dalxiiskan kula jiray. Kuti iyo xaaskiisa iyo weliba wiilkiisa goortay arkeen gabadhani way aqoonsan waayeen. Sababtoo gabadhani way isbedeshay waxayna gabadh aad u qurux badan. Haddana nin kale oo caddaan ayaa la socday. Iyagoo xilligaa isweydiinayay gabadhii dhinacooda soo aaday. Kadibna waxay bilaabeen inay su'aalo weydiiyaan. Waxayna ku dhaheen gabadheedii aan ku weydiinay yaad nooceed halkee ayaad naga soo salaantay. Helen oo xilligaas ogaatay inay dadkaani aqoonin ayaana isla markii waxay bilowday iyadoo dhool cadaynaysa inay runta u sheegto. Waxayna ku tiri anigu waxaan ahay Helen gabadhii gurigeena in ka shaqaynaysa sida shaqaale oo kale. Kuti xaaskiisa markay arkeenna waa ay la yaabeen isla markiina way aqoonsadeen. gabadhii hadalkiisii wadata ayaana waxay tidhi meeshan waxa u joogaa inaan waalidiintiidaan la kulmo sidaasoo kale ayaan ninka hilmaamine ninkan iska barta waa ninkayga goortaysa hadalkii ay sidaas u dhammaysay ayay isla markiiba Kuti iyo weliba xaaskiisa waxay bilaabeen inay iska ooyaan ilinta ayaana xilligaasi ka daadatay kadib gabadhii ayay bilaabeen inay raali geliyaan waxayna ku dhaheen Helen qalad weyn ayaan kaa galno bariyeen iska cafi waan ognahay dhibaato weyn ayaan ku geysanay markan iska cafi gabadheedii sidaasoo kale Jack ayaa isagana bilaabay inuu cafis weydiisto wuxuuna ku yidhi Helen qalad weyn ayaan kaa galay waan ku baryaa iska cafi Helen ayaana xilligaas iyadoo degan waxa ay ku tiri aniga waxba inima qabo sababta maanta dhibaatadii ay geystan ayaa aniga sabab u noqotay inaan noqdo qof aniga isku tiirsan kadibna waxay bilaabeen inay si wada jir u fadhiistaan meeshiina ay ku sheekaystaan weliba wixii horena ay dib uga sheekaystaan sidaasoo kale Mr. Kuti waxaa ku soo laabanaya arrinkii kadibna wuxuu bilaabay arrinkiina uu kala hadlo wuxuuna ku yidhi gabadhaydii dhegayso meeshaan waxaan u nimid arrin kale kaasoo aan doonayay inaan hadda kuu sheego waxaan maqalnaa adiga inaad dhashay wiil iyo gabar marka waxaan doonaynaa ilmahaas inaan aragno sidaasoo kale waxaan ogaanaa wiilka inuu dhalay Helen goortay intaasi maqasho waxay bilowday inay iska ilimayso kadibna neef dheer ayay qaadatay waxayna bilowday in arrin ka sheekayso
waxay tiri waa saxa 2 ilmo ayaan dhalay laakiin sidaasoo kale aniga waxaan scholarship ka helay dhankaasi Amerika kadibna waxaan go'aansaday in ilmahayga 2 bil aan la joogo dhankan iyo hooyo goortaan ilmihii meeshii aan keenana ilmihii meeshii ayay ku xanuunsadeen waxaan isku dayay isbitaallo badan inaan geeyo laakiin waa ku guuldaraystay maadaama xilligaasi aan wax badan lacag aanan haynin maalmo kadibna ilmahaygii mid ka mid ah ayaa geeriyooday kii kalena kama uusan dambeynay isagiina waa uu raacday oo waa uu dhintay kii mise goortay intaasi maqasho waa ay naxday islamarkiina dhulka ayay ku dhacday kuutii ijaag ayaana islamarkiiba ku soo horday waxayna bilaabeen inay islamarkiiba maamadoola carareen dhankaas isbitaalka baabuurka ayaana islamarkii ku tuureen kadibna waxaa loo qaaday dhankaas isbitaalka nasiib darase goortii isbitaalkii la geeyey dhakhtarka ayaa waxaa xaqiijiyey in ay geeriyootay kemi goortaasoo kuutiya weli wiilkiisa ay maqleen arrinkaas aad bay uga naxeen waxayna bilaabeen meeshii inay isaga qawmeeyaan asxaabii sheekadeena halkaas ayay ku soo dhammaatay walaani weydiiyey cashir nooce ayaad ka barateen fikirkiinana komanti noola wadaaga siinka noocan haddaad jeceshihiina komantiga waa walaalkiin barqadani leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu